dhowr qodob baan doonayaa inaan dul istaago qodobka ugu horeeya waxa weeye waxaan salaamayaa ciidanka geesiyiinta ee jiidda hore jooga ee uu taliyay Siciid madaxda u yahay iyo taliyayaasha ku-xigeenada waan wada salaamayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana waa salaamayaa wasiirada golaha wasiiradan salaamayaa golaha baarlamaankana waa salaamayaa salaanka bacdi dhowr qodob baan dul istaagayaa dhowrka qodob waxa kamid ah sool iyo sanaag iyo cayn baan la hadlayaa caariga taliska waalanaya naxashka saaran baa maalin walba idinku yidhaahda dagaal ma jiro waa caynka UN baa jirta waxaana jira dad baa wada hadlaya jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa baa lala hadlaya waxaas saakan diin cadeynaya waxa kama jiraan wax ka jira ma jiraan khudbadii madaxweynuhu jeediyay maalintii baarlamaanka la furay tii baa lagu taagay taawan ka gudbayaa sool iyo sanaag iyo cayn baan la hadlaya waxaan idin leeyahay u diyaar garooba dagaalka rag iyo dumar u diyaar garooba rag iyo dumar wixii aad haysataan qori iyo dhagax iyo mindi iyo qaniyo iyo wax allaale wixii qofba uu heli karo ha qaato dalku waa xor weeye maanta ay waa lagu soo heesayaa haddii aan laydno dagaalkuna si degdeg u bilaabanaya haddii aan laydno waxaan kaloo la hadlayaa garad jaamacow inaad xajida ma ahayn inaad cimraysatana ma ahayn 12 sannadood baad ayda cidada wareegaysa maalinka maanta bay kuugu dhowdahay dalka in la xoreeyo dagaalka de waad igaga baxday waad igelisay waad igu yiri tukaraq ilaa intaas aad wakiil ka tahay imana aad soo sheegin markii aad baxaysay aad cimraysanaysay ilaahay horta ka aqbalo laakiin aad iyo aad waxaan uga xumahay inaad tagto maanta ma ahayn waa ayay wasti bartii u dambaysay bay ahayd inaad tagto ma ahayn laakiin rag baa ka dambeeya waxaan ku leeyahay in kastoo Cali Khaliif uu markuu dibadda tagaba uu wax ku soo qafilayay dadkii jaaliyada ahaa waxa weeye markaad soo kala furto wax xaqiiq aad u sheegto Cali been buu sheegay markaad wax xaqiiq u sheegto soo bax reerka madax baad u tahay dhulbahanto dhan baad madax u tahay caaw hadda dhimato waa lagu weydiinayaa reerkii dhulbahanta ahaa xagaad kaga timid baa lagu oranayaa garaad jaamacu meeshaad kaga timid ma sheegi kartid marka cadaab baan kaaga baqaya aad baan idin salaamayaa jaaliyada dibadda waxaan leeyahay aniga waxba hay ogaaninay isogaada oo iska warhaya oo heshiiya oo maanta harti waa mid oo daarood waa mid ay waxaan soo maray jiida hore nin baan ku yiri qolama taa wuxuu weyn marxaan baan ahay mid baan soo maray wuxuu yiri Cabdullaahi Yuusuf Abtiya Soomaaliya oo dhan baynu wadanaa maanta waxa SNMtu cidlay taagantay marba hay yiraahdeen ya dirahiyo waa caynkan iyo waa sida waxa waxba kama suuragelayaan nin gardanayna ma guulaysto waa laga guulaysanayaa si fiican baa looga guulaysanayaa ilaahay idankii waa naga gardaran yihiin guul waxaan leeyahay ciidanka halka jooga iyo waxba ka bixin ha lagala haro hubka dariiqa hal la gooyo ciidda hal lagu rogo dhagxanta hal lagu rogo waa idin salaamayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa sool iyo sanaag iyo caynow isugu geeya ilkaha iyo micida iyo cidiyaha isugu geeya ciidankaasi iyo idin dhaafin